Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana wanaagsan asxaabta reer dhaqankaaba soo dhawaada meel kastoo joogtaan haddaad Facebook iga daawanaysaan iyo haddaad YouTube-kaba iga daawanaysaan soo dhawaada. Sida u jeedaan maanta gurigii baan hagaajinayaa oo dhismihii baan idin soo tusay aqalka. Aqal buu noqonayaa dee waa aqal Soomaali iyo aqalkii baadiyaha. Waxaas u jeedaan waa miiskii baadiyaha hinsaraar baa la yiraahdaa. Kartoomadaas ayaan saartay. Waxaan doonayaa halka inaan alaabaha saarto. Waana miiska baadiyaha daafre magaalada kugu sheego xaqanka yarka arago sidoo cunay inta uu ka reebay wax ku xaqanayna badana baadiyaha xaqan wax kuma xaqdan waayo xoolaha ka cunaya kasto baadiyaha wixii magaalada yaalla wada keenay haddana xaqan kala jira oo wax lagu xaqdo sida nagaarka ama jilabka kale marka maasha Allah gurigii waaniga hagaajinaya dhaqankaaba marka soo dhawaada walaalaha qaaliga muhiimadda aan gurigan kula wadaagay waxay tahay horta anigu horta mar walba waxaan jeclahay channelka dhaqankaaba iyo waliba qaybta page-ka inaan kusoo gudbiyo waxyaabo dhaqanka ku saabsan waxna laga faa'iidi karo marka muhiimadan aan kula wadaagayo waxay tahay in miyiga lagu noolaan karo oo qofku isagoo maanta noloshiisa wax walba samaysanaya ama wata haddana uu ku noolaan karo yacni dadka qaar waxay aaminsan yihiin miyiga nolosha miyiga inay aad u adag tahay runtii nolosha miyiga way adag tahay waxyaabaha qaar ma heli kartid magaalada yaali haddana maadaama intaas malaayiin qof oo maxay tahay dadkii Soomaaliyeed ee maanta baadiye ay ku nool yihiin maxay tahay in haddana aad sida u nool yihiin aad u noolaa karto waliba adigu sida aad jeceshahay intay dunidii horumar bay gaartay wax walba u baahan tahay wada heli kartaa magaalada ka keensan kartaa haddii cunadii noqoto haddii yacni wax walba jeceshahay maanta marka waxaan kula wadaagayaa aniga gurigan qaaska waxay tahay horta ugu horreyntii aniga mowduuciyo ayaan soo gudbi jiray gobollo ayaan tegi jiray sidaan idin sheegana hamigaygu wuxuu yahay gobol walba maanta Soomaali degto inaan tago ka soo waramo dhaqanka waxyaabo lagu kala duwan yahay dhulka qaar dhaqankiiba ku dambeeya in wax badan laga soo gudbiyo ayaga aniga maxay tahay hamigaygu yahay inana wadaagay dama xilliga jidaalka lagu jiro oo marka baadiyuhu wuxuu qurux badan yahay mar walba xilliga roobka oo dadku maasha Allah ay barwaaqaysan yihiin marka xilliga jidaalka maadaama lagu jiro waan soo laabtay gobolkii aan markii hore joogay deganin ayaan ku soo laabtay waxaan ugu talagalay marka dhowrka bilood soo socotay inaan nasto aan halkan iska sii joogno insha Allah markii roob la helo wadanku barwaaqo noqdaan aan barnaamijkeena sii wadano gobollo badan aan tago waliba gobol la aad u badan inaan tago insha Allah haddii noqon lahayd koonfurta Soomaaliya haddii noqon lahayd Somaliland ii dhiman iyo adigu inta ii dhiman oo dhan insha Allah dhul walba oo maxay tahay Soomaali degto inaan markaa aan tago dhaqankeena aan isweydaarsano waxba laga kala faa'iidayaa ama channelkan wuxuu noqonayaa insha Allah channel wax badan lagu kaydiyo marka waxaan halkan kula wadaagay meeshan magaalo ka degi lahaa oo dhii lahaa inta marka roobka laga gaaray magaalo iska joog inaan noloshayda halkan ku qaato aan iska dago ayaan kula wadaagayaa oo aragtaan si marka dad badan ay arkaan baadiyaha noloshiisa inaysan aad u adkeyn oo qofku uu ku noolaa karo culayska ugu badan aniga haysto wuxuu ahaa internetka isaguna horta alxamdulillah hadda sidii hore uu dhaamaa oo waxay xilliga xagaaga ee dabayshu socoto waxa waa alaabteedii aad u jeedaan guriga gelinayo xilliga marka xagaaga ee dabayshu socoto waxaad moodaa internetku inuu sidii dhaamo marka mar walbana culays wuu yahay ujeedadu marka waxay tahay dad badan oo maanta magaalada inay baadiyaha u soo bixi karaan kadibna ay degi karaan yacni waqti ay ku qaadan karaan يعني taas ayaan aniga in kula wadaagay oo waxa weeye dad badan ay ku dhiiradaan faa'iido badan baa aniga miyiga ka helay waxa weeye waxaan ku hurdo haday noqoto hurdada halkaana aad bay u macaan tahay aad bay u fiican tahay waxa laga yaabaa aniga markaan la hadlayo haddaan idin sheego markaan magaalada joogay markaan aan seexanay inaan hurdada baari jiray oo matalan ay saacado igu qaadan jirtay hurdada inaan helo laakiin halkan runtii xitaa haddaan israado anigoo isla wallahi wax ka fikir xitaa haddaan israado isla markiiba waan seexdaa oo waqti hore ayaa waliba la seexdaa waqti hore marka jadwalka wax badan baa ii saxmay magaalooyinka markaan joognay waxa laga yaabaa in la iska dhafro subaxdii marka shaqo u kacayso adiga hurdada sii raba inaad kacdo ama salaad ay ka dib dhacdo laakiin halkan ma jirto marka halkan waxa dhacaysa habeenkii inay 8 baa seexato ama 9 baa aad seexato aniga maadaama aan wax soo gudbiyo oo aan mashquul ku ah inaan baraha bulshada ku jiro meelo badan wax dhigo waxaan badanaa seexdaa 10 ama 4 saac habeenimo waa marka igu dhafar badan waliba anigoo indhaha aad iskugu haya waxaan bixinayo udub dhaxaad baa la yiraahdaa aqalka ayaa lagu tiirinayay marka waxa weeye walaalayaal waxay tahay horta taa faa'iido badan bay ka tahay fakar isma arkaysaan barbalamo dhan ku deynaya idima amaanayo dad badan oo soo tijaabinay way jirtaa laakiin waa nolol yar oo aad u degan oo bilaa buuq ah oo waxba ka fakirin
waqtina aad ku qaadan karto. Dadka marka waxaan kula tali lahaa problemka gaar ahaan kuwa ay problemka haysto ama xoogaa hawgadiska u baahan ee marka shaqo ka fakanaysa aysan jirin inay waqtiyada qaar baadiyaha ku soo qaadan karaan bahal iyo balaayo midna ma joogto. haddana wixii Ilaahay kugu qadaro magaalooyinka waa lagu nool yahay oo waxa weeye ayado xabado ka dhacaysa lagu nool yahay ama madfac ka dhacayo waxayna dadku wada leeyihiin Ilaahay hadduu ii qadaro ayaa lagu wada joogaa oo lagu shaqo tegayaa. halkaana marka bahalada jooga bahal weyn ma jooga laakiin waxa yarkaa halaqa hoose jooga haddii Ilaahay kuu qadaro way ku cunayaan haddii Ilaahay kuu qadarina kuma cunayaan ma fahanteen. يعني dad badan baa arkay baadiyaha masaskan ka baqnaa waxaasan ka baqnaa aniga in la hadlay mar badan baa masas la kulmay maxay arkay ku bahalada yaryar oo kala arkay sida dabaqalo haraanka kale kaasaan aad u nabcax aad u badan alxamdulillah ilaahayna wax dhibaato iguma gaarsiin. marka guriga marka hore wuxuu ahaa guri ay lahaayeen qayb familka kamid ah gaar ahaan wiilana habar u ahaa laakiin maasha Allah gabadhiisii cuslaatay badana dhaqan waxa loo leeyahay Soomaalidu gabadha ilmaha ugu horeeya markii soo dhawaatay reerkeedii bay aadaa marka gabadhii xaafadeedii bay aaday dhowr bilood bay ku soo qaadanaysaa. aniguna marka halkaan ayaan dhowrka bilood ee jidaalka ku qaadanaya jawi degan maasha Allah. sidaas oo taana mawduucyo waan idin soo gudbinayaa oo wax weeye halkaan mawduucyada qaar sida inaan waxyaabo hore soo jiro kale aan muuqaal inta ku tuso muuqaal waan soo gudbinayaa balse insha Allah hamigaygu wuxuu yahay haddii Ilaahay ii qadaro inaan gobol walba Soomaalidu degto aan tago dhaqankeenana xilliyada quruxda badan ee barwaaqada ah aan halkaa ka soo gudbino channelkana wax faa'iido leh iyo waliba qaybta Facebook page-ka oo hadda ku soo biirnay isagana halkaan aan ku soo gudbi doono wixii dhaqankeena ah haddii Ilaahay idmo marka idinkuna isoo dhaweeda shandarwada idin muuqata ama sinziyeer saa u taqaanid sinziyeeriga waxa la yiraahdaa tabliiq يعني تبليغ قاعدة سنسير تبليغ أما شندرود تبليغ اللي هذا سفر كأد ونكسنت هاي مركز قفك مركز دوني بادي إنه سوء هذا وسواق هذا كرانو وان وتوايا هنقدر نتن سفري ميلها ميجا لسكري كرحتها بلا فراش بس كرجع كرتها إن أد ونكسنت هاي مركز ما شاء الله هاد جوري سداس أيان وديار صدي إن دفراش قرباليا بدونه وسكر راح تشعلنا فراش كيس أيان سكوذنا marka muhiimadda mawduucan iyo mawduuca ka horeeyay wuxuu ahaa waliba mawduucan aan kugu soo bandhigay baadiyaha inaad ku noolaan karto inta doontid inaad maxay tahay waqtina aad ku qaadan karto wax badan aad ka faa'iideysid waliba gabdhaha xilliyada ay walaac yihiin oo kale xilliyada ay isku buuqsan yihiin oo kale iyo xitaa dad isku buuqsaneenba in jawi yar aad u degan aad ku soo qaadan kartaan inaad maxay tahay wax kasta ee magaaladii aad keensan karto sida maanta aniga boorsooyinka aan wato raashkaas aan wato shandarwadaas kale aan wato yani waxaad u baahan tahay inaad keensan karto halkaana waqti lagu qaadan karo kabaha qof baa hadii igu keeno qofka waa qof asxaabtida kamid ah aad ayaan ugu mahadcelinayaa kabaha iyo waliba qalab badan oo ii keenay solar ayaa kamid ahay alaabo badan walaalka waxaan leeyahay walaal aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa hadiyadaada mar walba amalkeeda waan ku hayaa markaas si walba tahay walaalayaal baadiyihiin waad soo bixi kartaan aniguna meeshan waqti baan ku qaadanaya muuqaalo waa idin soo gudbi doonaa inta jidaalka lagu jiro halkaan bay dhaqankaaba idin joogtaa adinkuna muuqaalada dee ugu caawiya inaad daawataan oo maxay tahay insha Allah intaas waxaan idin soo gudbinay xitaa aad garanaysaan daawashada inaad igu sii saacidaan miiskanina waa kaasa miis wuxuu noqonayaa magaalada ayuu ka noqonayaa laakiin waa miiska booska miiska u dhigmaa heensaraar ayaa loo yaqaanaa laba udub ama laba tiir weey ayaa la mudayaa kadibna waa ninka ujeeda waxbaa la saarayaa ama wixii raba raashinka ayaa la saaranayaa su'aasha ugu badan bariyaan waxay ahayd miyaa lagu aroosay mise miyaa lagu aroosayaa wadiga guriga dhisanaya kale indhihiina idin macallima guriga hadduu guri aroos in la ekaadana dee caruusad bad iga soo qaadaysan haddii guri single la noqdana dee kale dad waaweyn baa tiin mogtahay single-kii baan ahay kaftankuna wuu noo furan yahay walaalaha qaaliga YouTube-ka iyo qaybta page-ka wax dadka anfacaya inaan ku soo gudbiyo ayaa go'aankayga ama ballanteena ay tahay insha Allah dhowrka biloodna halkaan ku qaadan doonaa mawduucyadana waan idin sii wadi doonaa mawduucyo badan insha Allah inaan soo sameeyno waxyaabaha sheekooyinka aan ku maqalno oo kale inaan muuqaal ka sameeyno markii roob la degana insha Allah inta gobol ii dhiman inta aan dhiman waxa go'aankayga gobol walba inaan tago hadii Ilaahay uu ii qadaro qayr badan baan idin rajeynayaa insha Allah Instagram-kana waxaan ku yiri follow hal soo Instagram-ki baa haray intii kale ma sha Allah waa ka dhigteen sidaas iyo nabadiino.